السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا دمانتين channel كان إن شاء الله ما تحكى لنا شرب بدن هروح بدن يعني قصة هذا الناي شرب بدن هرت واحد بدن قصة هذا الناي وحي ترتو وحي قبضتو هذا وينو going back كم الله ونينا إن شاء الله تاس هراء يعني قصة عنينا أولي مهمة أن فيدان أصول دبي وحي هاي مهمة كلها أصول دبي صح. waxaa waada kor waxa isku dayayaa in aan keeno Soomaaliya marka maxaa iga hirgalay keenitaanka Soomaaliya ma ku tali jiraa wali in aan keeno mise waa iska dhaafad sababta ogtihiin coronavirus baa soo baxay ilaaha naga haayo wax keenidina de waa iska fahmi kartaan dhibaatooyin badan iyo waxa iska jira marka hadda muhiimada ku soo laabano horta ma keenin laakiin waan dalbay waan isku dayay Canada ka dalbay markan Canada ka dalbay waxa dhacday 100 xabaan iibiyay 100 marka iibiyay wuxuu ugu dhahay 100 Canada inta laga qaado Soomaaliya la geeyo way yartaa 200 xabo iyo ka badan inaad gadatid waa 200 xabo iyo ka badan walaarta dib ay ugu noqotay waxa uu diray Soomaali jooga waxa ay rabay shirobadaas hal ii soo ogaado ma la gataa weel farmashiyaal loo tagay Soomaaliya meel badan Muqdisho hadii tahay hadday tahay Garowe iyo hadday tahay Somaliland ba magaalooyin kamid ah marka waxa dhacday waxay dheen shiroobadan anagu waan keeni jirnay $15 meelahaas aan gadi jirnay laakiin dadka ma gataan ma iibsadaan saasan iskaga dhaafnay marka waxay dhaheen hadalka idin waday soo fiidiyaan kala jaray muhiim ma ahan ay dhaheen hadii aan la gadanaynin inaan keeno mana la gato saas loo ma gato kuwa kala badan waxa jira in Soomaaliya la soo gasho oo qaar oo mateedka furaan qaar automatic qofku hilibkooda saaidahay oo ciilayo marka waxay dhaheen maadaama suuqooda u dhacay waan iska dhaafnay saas iska dhaafnay adiga marka dib ay ugu noqotay tan all the way Canada aan ka keeno sharoobo ciidaha ka badan marka wadankii la keenin in la gadan waayo marka wadankii keenin in la gadan waayo marka faa'iido iguma jirto because aniga markii Canada laga keenay Canada ilaa Soomaaliya wala soo qaaday alaabtii lacag ku bixiyay haddana qofka Soomaali joogo iibinay asaga laftigiisa lacagtiisa rabaa oo qofku free ku ma shaqeynay marka waxa dhaaf waxa soo dhan macquul ma noqon karto xagaas Canada marka waa xiray okay sida marka ku ekaatay waxaan go'aansanay inaan ka dalbano Hindiya marka ka dalbanay Hindi waxa la dhawaale helaa iyadoo waliba aad raqiiso ah oo xabadii $1 xitaa ay ka yartahay maxaa yeelay kambaniga iibinaya ayaa Hindi ku yaala ma fahanteen marka waxay dhaheen daawo laakiin waxa dhahay 50 xabaan ku bilaabinay bil 50 hana la siiyo wiilkanada wax ka barta u dirnay wuxuu yiri 50 xabo markuu dabcan soo gato waxa la $50 wadanka inta ka saartay wadanka lama geyn kartid ilaa waa inaad maxay dhigi jiray waraaqada lagu soo qoro oo yani daawadan cashuur laga baxshay waxyaabo yani dawladda la xiriir ana ka soo dhameysatay marka halkaasna way yara adkaateen warqado dawladda qorqoraan oo maxay dhigi jiray arro dhan isku soo maro waay sida qof farmashiye aniga de farmashiye ma lihin ma isfahanna marka waxa dhacday haddana inaan gabdho Kenya jooga la xiriir gabdhaha Kenya jooga ay Hindi loo keenay ama daaba ay Nairobi joogaan waxay dhaheen way fududahay inaan ku keeno oo cala xabad ayaan waxaan ka siinaynaa maxaa la dhahaa $25 marka cala xabad marka inta $25 ay qaado haddana Nairobi ka qaado Soomaaliya geey haddana qofkii gadaya aan faa'iido ka raaso xabadii boodboodaysa 25 ma si joogo soo fahmi kartaa marka haddana waxa dhahay leenkaas leen soo mari kara ma waa leen aad u qaali ah link Kenya iyo Canada marka saasan ku xiray marka ugu dambeysay marka anoo rabay inaan raadiyo oo wiil oo qaraabo aan ahay ugu yiri Muqdisho tagaya markaas magaalo kale joogay farmashiya raba inaan furto ana kuugu daray dhowr kartoon hadii laga gadanayo maadaama tiri gabdhaha YouTube ka aad i weydiiyaan oo saxaabtaada YouTube ku xiran ay ugu daneynayaan dee waa kugu caawinayaan ana alaab dalbanayo waa lagu soo darayo soo marka insha Allah sidii iyadoo la qorsheenayo asleeyahayba marka waa kama dambayso lagu keenayaa de ma dhicinin isku dhicinin coronavirus ay maaday ilaahay shartiisa hana mootiyo wiilkana sida ay wuxuu ku noqday inuu meeshiisa iska joogo oo Muqdisho imaan waayo hawlihiina oo sidii ku baajiyay inta xaaladan iyada laga baxayo marka waxa bislaahaba walaana iska badhaaftaa hadii dadka Soomaaliya joogo oo farmashiyaasha ay leeyihiin shirbadan hore u keeni jirnay nalagama gadan jirin taqaanaa staas tartaas dhaw iska dhaaftaa iyada dhanba because inta leena u maray farmashiyaal xitaa wiil leh waa isku day inaa u diro
Kenya isku dayna ka gato Canada Hindiya barka waxa dhaha wallahi leen dheer ay ugu noqoto horta been ilaha caay antaasna wallahi waa raadinayay aniga horta wadankan joogo way taala runtii marka laga hadlo guriga ima taala laakiin dukaamada ay taala qofku u baahan soo qaadan karaa aniga waa soo gataa hadda idin la hadlayo xitaa mid aan shalan soo gaday hadda maalinkii ciida kadib aan soo gaday shalay ciida marka shalay markaan ciida soo magaalada ka imada adeeg wax soo qabtaan soo gatay way buuxdaa saas ku buuxdaa marka dhalada hadda waa rabaa inaan marka sorry dhalada ma tusi karo dhalada waxa waaye aniga mar madaxii ma saaran marka dhalada waxa ka soo baxaya sawirka ka soo dhex baxaya oo kaamirada qabanaya saas aan dhalada uga saaray laakiin way buuxdaa tan markii la soo iibsanayo wax yar ee afka hore ka banaan tahay marka insha Allah waxa isku dayaa dhowr su'aalood ugu soo noqoqdo inaan ka jawaabo ugu dambeyn insha Allah hadii wiilkaas uu keeno isku day waa inuu sheegaa laakiin hadda hadaad Soomaali tihiin kuwa kala jira waxa dhihi lahaa maxaa la gabiga si camal no isku day wiilasha inaad hadaan noo keeno oo kala weydin keenay hadda ka iibsanaysaan marka meelina kala ka sii gata hadda anigu keeno oo ay suurta gasho insha Allah waa idin soo sheegaya hufan taas waa isla fahanay okay mid ugu dambaysa qof amandad comment wuxuu igu soo qoray xamdi mar waxa tiri macabo mar waxa tiri waa caba horta macabo iyo macabo marka dhahay waa caba macabi sorry video ma idin garan karo oo iska sii wadaya macabo marka dhahay video ugu horeeyay soo dubay ahayd waa YouTube bilaabay 2 sano ka hor markaan cunugayga warkiisa lahaa de qof uur lana ma cabi karo shuruubooyinka iyo daawada qaar marka la video hadana soo dubay markaasna baby nuujinay waxa ay iyadana markaas ma cabo wasaf marka ilmo nuujinayso daawo kasta ma cabi kartid sida darteed laakiin hadda waan cabaa waayaasna waa cabi jiray uurka intaan ayaan ka hor cabi jiray marka nuujinta joojiye ka badan kadib waa cabi jiray 100 dhala ugu maqan reality-ga laga hadlo taas horta iyadana waa halkaas uga jawaabayaan qofkii raw tijaabin kara qofkii maxaa la dhihi jiray mid kale oo soo noqonayna su'aasha kale dadka Yurub jooga waxa xageebi ka heli karaan Amazon-ka eBay-ga dukaamada Hindida dukaamada Turkida maxaa ka raadsada insha Allah magaceeda internetka ku qorana isku daydaan oo ka heshaan hada internetka raadiseen ama show inaad helisaan soo waxyar moota meesha mareysay mid kale gabdhaha iyo dadka markay la soo xiriiraan waxay dhahaan xabdi shuruubada xayisiisid ana horta shuruubada ma xayisiyo to be honest waxa waaye kibali iskalena ma aqaani ani hintii ku yaalan waa arka laakiin qof kibaliga iyo qof maxaa la dhigi jiray xayisi dhahay ma jiro laakiin waxa waaye qof kasta markuu YouTube imaanayo wixii asagu ma isticmaala ama wixii asagu dadka uga faa'iideyn karo uga faa'iideeysa marka aniga miye dadka burburan oo hilib iska rido oo maanta YouTube soo fariista dhahaayeen waxa ay dhahayaa wax la isku caateeyay wax caloosha la iska gajiro wax saana wax kan ah marka alle waxa isticmaalaa waxyaabaha la isku ceelay marka dad sidoo kale alaasi ma jiran oo raadinay hadda intaan aniga YouTube-ka ee shuruubinka ka soo hadlay malaayiin gabdhiyo wali isku jira ay la soo hadleen dhan sidoo kale waanu baahanahay baashan naga sidoo kale caata marka maxaa la dhihi jiray qoomka isla caatadana inay ka faa'iideystaan oo soo gashay oo kaliya laakiin anigu kan bariga waan ma shaqeeyo mana aqaani bas qasan ka soo gataa sida adiga maanta dukaan ku dhow hadii lagu gado soo gadan lahayd baan soo gataa laakiin maadaama channel aan leeyahay in dadka uga faa'iideeyo wixii aniga aan isticmaalo ani shaqeeyay intii sidoo kale mataqaanaa baru raadinayso caata raadinaysana anu channelka waxa la isku caatay bab soo gasho ana ma isticmaalo wax bointi bal inta qof kale ka soo daawado oo dhahdo maxaa dhigi oo wax la isku caatay sheegay in aan inta soo fariisto waxa la isku caateeyaa un ma aha waxa aan isticmaalo oo dhahay maanta waxa la isku caateeyay waxana la isku sameeyaa iyo sana exercise loo sameeyaa ma bihi laana ma is caateeyo alxamdulillah aniga markasta aan iska caatay dadka oo caatada iska ah marka saa darteed markasta wixii la isku ceeliyo baan ka agdhoohay saas darteedna maxaa la dhahaa dadka sidoo kale ba fiidaash u soo duubaa oo u soo geliya ma ganacsina leeyahay ma ana dukaamo leeyahay ma ina company u shaqeeyo insha Allah
mid ugu dambayso idin kaga tagaayo waxa waaye in ciid mubaarak hadda ciidii oo كبشرة أحد يكستو أنت الفيديو أنا سوق قلين أنا أنت بدل الفيديو مسوق قشو لكن إن شاء الله أسكت أنا فيديو سوق قشو أسكت ضيع داد نويلش في فرمشياش صراحة كله داد شون قف مليح قف كله أنا لحظة أن توك كذا مركالات كان سنة كل ولا شرب بدل إنه وصل درع يدك وصل درعا تاسنا أسكت ضيع ويل باتشر هذا كور حال يجري يوتيوب كي إمادة إنه يروي جو سومالي dhowr jeer ayuu kommentayaasha wuxuu kusoo qoray shuraabadan hayaa halaga soo doono waa la xiriir waxa dhabo shuraabadan maada haysta ha imiso $55 uu taagan yahay wax Nairobi Africanka waa $20 iyo $25 gadaaye asaga ma ayuu intuu ka soo gado oo wuxuu rabaa adiga dhabalkaasi qaado marka dadka saas u kalena please channelkayga joojiya shuraabaha dhahdaysiin haddii dadku wax macquul ah ka gadaysiin waa macquul laakiin shuraabadii oo adiga Nairobi jooga $25 ku soo gadaysa haddana dadka 55 ama 60 ah ka siisiinaysid wax macquul ma ahan marka qofkaasna waa arkay dhowr jeer ayuu fiidaashada ku soo qoray wixii shuraabada raba anaha ila soo xiriiraan ana idin keenaya ana san idin yeelayo kaaga ma cishana aniga because ana raba ila keeno ama ana raba ina iibiyo laakiin sababta waxa waaye yani وخيانة أنت 25 كسر بحيس أنا ضد بدنا على حرير والله إنه يريب يشوف ده 25 حتى هذا واحد بدنا نجيب سنة سد أو 20 مصدق نجيب سنة سد لو كلات وكاسيننا مرك هذا إنه يريب جد كسر جو أنا ترى ضد كي محل يجري كونتر يشن اللي أنا على حرير نفتي أنا محل يجري لها الله مرك تاسمح حاجة وخالد ما هكذا الكلام وإما تضد كنا محل يجري دعدنا مرة كذا لكن عدد كنا وحي برايس عادي هيك قاعدين مو ناقصنا سوما هذا ليست dadkii inta adiga 25 ka soo baxsatid oo kale aad 30 ka siinaysid ama 35 xitaa oo $10 saaranayso wax macquul ah marka dadkaasna insha Allah way isqaadan wan isgaranayaan wax badan ay lambarada soo qoreen shurubada sahayna xigana joogna wali waa wiil hadda magaciisa ma xasuusto insha Allah de wad isgaranaysaa walaalo macaano iyadagana gacanaga si hadaadan wax si macquul ah uga iibsanaynin هذا التن هذا حجة صح حرتي هذا التنوي بوحدة هالكاس عبرت سوي جدا ما فارق روحه يوش لهالكاس يجوكتا عادي أهم في السوق قضى أنت اسمر لعب شيء سنة هذا ما يش يجوكتا تن هذا وحين كعبنا عمرينايا هالمر مثلا مر ما دابر بدن لو كنت شيء مسوق قضانين حنجي على هاي ما أنتي دنا سوق قتي صح مر كوتاس إن هذا سوي يبسطي حفلان إني ملاها سكري جوكتا أو ملاها سكري bartaas uu joogta aad afartan ku taagayo soo waa intaas iyada dhanba inta gacanta ku haay marka kartoonkeedana waa kana dada waxay dhahaan khasaare leedahay laasim horta khasaaro way leedahay waa daawo anigu ma soo saban kuma dhahayo khasaaro malahan kuma dhahayo saan ma ahan kuma xaysiinayo kuma nafafaalinayo laakiin aniga alxamdulillah naftayda dakado dadka in khasaaro badan saas aan ku qabin ba ku jira dad khasaarada ku qaban xakamida gabar hadda waxay badtiriba maalin la soo xirta hadda dhow la isbuuca malinaya waxay dhahday waxba ma tartaban gaajib dhan ma arkaayo maxaa la dhihi jiray ma dareemayo inaan shuruubada qaadanayo marka mid fayga jirta matifayga hada walaal anu kama warqabo UK waan joogaa UK na de alaafayga lama soo gelin karo way adag tahay ma malinaya marka jawaabteedana waa taas dadka kale waxay dhahan dad la faxanuunka sheegtay dad wadna garaac dad baa dhahan maxaa la dhahaa daal iyo horta hurdo anigu isku arka taas waa iska caadi oo maalmaha ugu horeeya qaadanayso wala marka la qabsato waa iska caadi daalka iyo marka hurdada waa adiga dhowrka biro war salaatin la iskama badiyo looma qaato laakiin 5 jeer maalinka hal ilaa 2 jeer hada qaadatid I think that is waa caadi 2 jeer ilaa hal maalinka kugu filan tahay waxa la qaataa cuntada ka hor way inta aad 10 daqiiqo ka hor la qaataa iyadana su'aalaha kale ka imaado waxa weeye inuu cunaa exercise ma sameyn karaa ha waa sameyn kartaa wiil diriska daga gadan jiray website oo la galgaliya hada ka hor gadi jiray hada ma gado wuxuu dhigi jiray way gadan jiray 5 xabo 6 xabo iga qaadan jiray marka wuxuu dhigi jiray exercise sameeyaa maadaama exercise aan sameynayo oo gym aad maxaa dhigi jiray ciyaari jiray marka wuxuu maadaama gym aad u ciyaaro waxa u baahan cunto badan dadka wuxuu marka cuntada ay isku socon marka iyadu wuxuu isticmaali jiray cuntada u furi jirtay oo kale
maanta lama ku jim soo qaado karo inuu wax fiican u cuno dadka oo mutaqaana ma ahayn iscaateenaay dadka iscaayilinaay oo wuxuu ahaa rabo inuu murqa yeeshaan marka wiilasha saas oo kale rabana insha Allah ayagana way isticmaali karaan wiil badan aan dhaheen haddaan isticmaalno calal ma naga soo riday horta dad badan ay ka soo riday I'm sorry ma idima dhihi karo in idinka soo riday u badan tahay laakiin hadda exercise sameynaysid oo kale sida wiilkaas oo kale waxaa laga yaabaa inaysan dhibaato ku geysan insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaas ku dhameynaa fiidiyahayga insha Allah subscribe noo saaro share noo saaro like sidoo kale hanaga ilaawenina wixii comment fikrada insha Allah Facebook linkigaygana waa idin soo dhigayaa hadda dadka inta badan waxa u wareejiyay reer Facebook maxaa yeelay markaan WhatsApp-ka idin siiyay dad badan ahaan ila soo xiriireen qofkiina aniga qof kastana wala uma jawaabi karo because hooyaha ilma iskuul geysta family maxaa la dhihi jiray ugu taxalluqa maanta oo dhan ma jawaabka maxaa dhihi jiray WhatsApp kama wada jawaabi karo marka waxa ii fududaatay markaan fiirshay xagga Facebook marka dadka marka ugu soo darsadaan qofka hore ka soo wici ama adoo jawaab qaban ama maxaa la dhihi jiray fahmaysa xaka wada calaash marka insha Allah xagaas ay idin wareejinaya Facebook linkigayga Facebook hoos idinku soo qoraya waxay su'aalo qabtaan waxay aragtida qabtaan insha Allah kasoo nagu soo diri kartaan subscribe-tan naga ilaawana insha Allah 5 kuna ku soconaa wax yar iga dhiman hada 5 ku soo gaaro insha Allah xarwa fiidiyal kale inaan soo gasho oo shiroobadan ka baxsan shiroobadan inta nooga ekaato waxa soo gelin doona hadii Ilaahay idmo waxyaabo kale isku celiyo dabiici ah oo aan shiroobadan ahayn oo wadanka laga heli karo inaan soo gasho isku dayaya fiidiyal caadi oo vlogs daily vlogs kaga soo gasho waxyaabana iga barataan insha Allah waxna kala faa'iidno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh